wadamadii uu ku soo rogay madaxweynaha wadanka Mareykanka ee Donald Trump oo wili go'aan rasmi ah laga gaarin iyo wadanka Canada oo dhimis ku sameeyay soo galootiga ee qaxootiyada caalamka. wararkaas iyo warar kale xiiso badan ayaa muuqaalka ku daawantiin. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan asxaabta ku xiran qaxootiyada Dab TV soo noqod wanaagsan. insha Allah muuqaalkan waxaan doorafayn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dibadejinta iyo qodobo kale oo muhiim ah iyo talooyin ku saabsan oo dhalinyaro badan isoo weydiisay ayaa muuqaalkan haddii ay idmo ayaan ugu dhameystiri doonaa insha Allah. haddii aan ku bilaabo qodobkeen wax xasaasiga badan ee ah madaxweynaha wadanka Mareykanka oo isbuucyada u dambeysay laba isbuuc ka hor oo ku dhawaaqay in uu xadidaad ku sameeyo 42 dal oo wadanka Mareykanka uu ka xanibay inay soo galaan. laakiin balse ilaa hadda go'aan rasmi ah laga gaarin. waxaa laga sugayaa go'aankaas wadanka waxaa laga sugayaa maxkamadda ayaa laga sugayaa jawaab cad, balse ilaa hadda laguma dhawaaqin. laakiin balse waxaa wili ololaha sii wado dadkii Donald Trump la shaqeynayay ayaa wili ololada sii wado. balse insha Allah muuqaalka dambe ayaan ku eegi doonaa ay wararka ka soo saaraan maxkamadda iyo waxyaabihii ka soo kordho. insha Allah waan idin soo wadaagi doonaa. qodobka xigo wadanka Canada sida ciidan caalami ah tahay waa wadanka labaad ee ugu qaxootiga badan marka la fiiriyo. wadanka Mareykanka ayaa u badan caalamka intay qaxootiga qaataan, laakiin wadanka labaad oo soo raacayo waa wadanka Canada. ciidan waxay ku bilowday wax la hayo dhimis, waxayna soo bilowday sanadkii 2024 dhamaadkeedii ilaa iyo hadda sanadka hadda ku jiro 2025 ilaa 2027 inta laga gaarayo waxay hoos u dhigtay soo galootiga soo galay 20% ayay ka jartay hoos u dhigtay. waxaa la filayaa ilaa 2027 inay 500,000 oo qof inay soo galaan, laakiin balse hadda waxaa laga dhigay 300 iyo jajab ayaa laga dhigay. sidoo kale waxay hoos u dhigtay 10% ardayda oo internationalka ah ardayda caalamiga ay soo codsanayeen soo galooti oo wadankan inay soo galaan wax ka bartaan ka shaqeystaan iyadana waa la xadiday hoos ayaa loo dhigay 10%. marka insha Allah sidaas iyo qodobo kale insha Allah sidoo kale waxaan ka hadli doonaa wadamada Yurubta iyadana insha Allah sida wadanka Ingiriiska, Norway insha Allah muuqaal kale ayaan soo sameyn doonaa. muuqaalkan xiga ayaa iyadana soo falaqeyn doona insha Allah. sidoo kale waxaan talo u sheegay dhammaan asxaabta ku xiran qaxootiyada Dab TV ama asxaabta hadda muuqaalkan daawanayso, haddii horaan aad dibadejin u suugaysay oo ahayd syndrome oo ahayd horaan isku duwan syndrome oo xaas ahayd oo ninkaada stress ku saxay ama nin ahayd oo xaaskaada haddii ahayd dumar oo ninkaada ku saxay iyo caruurtaada hadda waxaan kuu sheegayaa fursad ah inaad wili ninkaada iska qaadato oo saxiixato ninkaada uu macnaha ku darsato. insha Allah idana talooyin ku saabsan insha Allah isla muuqaalka xiga ayaan soo sameyn doonaa. su'aalo la soo weydiiyay ayaa jira qaybta commentiga idan insha Allah muuqaal ayaan soo sameyn doonaa. qaybta commentiga dad ayaa i weydiiyay waxay dhahan lambarka kala soo xiriirina maxaa waaye, balse insha Allah lambarkaasna qaybta hoose ee description-ka ayaan soo qorayaa insha Allah qaybta lambarka laga soo xiriiri karo. aad iyo aad u mahadsantahay asxaabta muuqaalkan hala share gareeyo, subscribe saar haddii horaan ku ahayn subscribe waa noo muhiim nagu dhiirigeliya si anagana mar walba muuqaalada diiradda aan saarno iyo wararkii u dambeeyay taxanaha insha Allah dibadejinta insha Allah waan soo badin doonaa maalin kasta warar ayaan soo raadin doonaa insha Allah hadduu ay beedmo. insha Allah wixii talooyin ahna insha Allah muuqaal ayaan soo sameyn doonaa insha Allah. muuqaalo badan ayaan soo wadaa hadduu ay beedmo. aad iyo aad u mahadsantahay haddii intaan soo gaartay muuqaalkan like noo saar noona share gareey asxaabtaada u lowdaad. aad iyo aad u mahadsantahay. wabillahi tawfiiq. ramadaan kariim. ramadaankan gabdho ay marayaa insha Allah 10 dambeys ayaa lagu jiraa. haddana isbuuc ayaa haray ramadaanka. isbuucan ilaahay si khayr ah nagu gaarsiiyo, ajirkeeda iyo axsanaadkeena ilaahay hana siiyo insha Allah. inaan isku duceyno ayaa meel walba dunida ka jirno isku duceyno. aad iyo aad u mahadsantahay walaalayaal qaali.